السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا وعنا ونكسن داوديال halkani waa stuudiyaha xarunta xisbiga barwaaqo ku leeyahay magaalada Jigjiga oo idinku soo gudbin doono barnaamijyada xisbiga haddii Allah wada raali ka noqdo. Waraysigan maanta waxa uu daaran yahay kormeerkii hogaaminta xukuumadda xisbiga barwaaqo dhawaan ay ku martay gobolada deegaanka iyo magaalooyinka. kulankan waxa martay ugu isla mar ahaantaana aan ku waraysan doonaa Marwo Hiba Ahmed, wasiir ku-xigeenka xafiiska xirfadaha iyo shaqo abuurka deegaanka Soomaalida kana tirsan xubnaha golaha dhexe ee xisbiga barwaaqo ee dalka. Marwo Hiba ku soo dhawow stuudiyaha xisbiga barwaaqo magaalada Jigjiga ku leeyahay. wandhow hay'adii aad baad mahadsan tahay. bismillaah, marka hore waxaan ku faraxsanahay inaan ka qayb noqdo kulanka maanta ama waraysiga. marka xigta kulankeenu ama waraysigeenu uu daaran yahay socdaalkii xisbigu uu dabagalka ku ahaa waxqabadkii xukuumadda. anu gobolka Jarar baan ku qornaa iyo maamulka magaalada Dhagaxbuur. guud ahaan marka hore aan ku bilaabo kormeerkii aan u baxnay. kormeerkaan u baxnay 3 qodob ayuu daarnaa. kow waxa ka ah in aan soo eegno gobolada inaan hoos ugu dhaadhacno degmooyinka ilaa qabale oo xaaladda guud ay ku sugan yihiin in xagga adeeg bixinta nabadgelyada iyo guud ahaanba xaaladda guud ee gobolada inaan soo indhayno. qodobka labaad waxaa jiray xagga horumarka ka socda ilaa qabale ee heer deegaan fulinayo, heer federaal uu fulinayo ama degmadu ay fulinayso inaan meeluhu taagan yahay rubcii koobaad maxaa qorshaysnaa maxaa fulay inaan soo eegno. qodobka saddexaad wuxuu daarnaa waxaa jiray fikiro ama initiativeyo ay xisbiga uu hogaaminayay oo laga fulinayay gobolada maamul magaalooyinka ilaa qabale ilaa degmooyinka laga fulinayay inaan kaana soo qiimeyno oo initiativeyo 3 qodob oo waaweyn ahaa. guud ahaan taasay ahayd waxaan aan u baxnay safarkeenu taas u daarnaa. hogaamin kala duwan oo xisbiga xubnaha xisbiga iyo golaha barwaaqaba ayaan isugu jirnay oo waxaan hogaaminayay mudan Cabdiraxmaan oo madaxa arrimaha siyaasadda xisbiga. gobolka Jarar markaan eego sectorkan anigu ku qornaa gobolka Jarar iyo maamulka magaalada Dhagaxbuur ayay ahayd. xaaladda guud marka la eego oo xagga nabadgelyada goboladu guud ahaanba nabad bay ahaayeen. gobolladeenu guud ahaan marka la qiimeeyo wax isku dhacyaa ma jirin, nabadgelyadoodu wuu sugnaa, adeeggu si fiican buu u socday, horumarka sidaasi lamida iyo dadka isu socodka wax dhibaato oo ka jiray ma jirin. marka la eego xagga waxqabadka xukuumadda ee rubuca ayaan xooga saaraynay maxaa qabsoomay maxaa qorshaysnaa maxaa qabsoomay sabab wixii aan qabsoomin sababtu u qabsoomi waay. waxa ka ahaa ururinta dakhliga marka la eego gobolka Jarar si guud dakhliga wanaagsan xaaladda waqtiga 15 cisho ayaan ku maqnay. 15 cisho wixii qorshaysnaa marka la eego 100% fulay. marka la eego laakiin deficitkii aan ku jirnay marka lagu daro waxoogaa hoos buu u dhacay. laakiin markaan guud ahaan aan qiimeyno habka dakhliga ururinta iyo ilaha dakhliga sameynta iyo gobolku soo u dadaalayo hogaaminta gobolku aad buu u fiicnaa. waxa qodobka kale ahaa dalag iyo daryeel oo runtii roobkii xagaaga uu bilowday gobolka Jarar uu ka bilowday dhul beereedka dadkeenu berigii hore dad xoolo dhaqata ay ahaayeen gobolka marka la eego. laakiin hadda beerihii oo la soo baranayo abaabul badan iyo wacyi badan ay ka jiraan oo beerihii wax badan la beeray ayaan ku soo aragnay. dhinaca kale waa dhinaca maxay dhaqo dheefso waxaa ku badnaa dhaqashada xoolaha oo marka horeba aan caan ku ahayn taasoo la yara casriyeeyay. caanaha suuqa la keenayo suuqa wanaagsanaa xagga digaagada oo la soo baranayo adu bilow fiican baa ka jira xagga dhaqo dheefsada. initiative kale wuxuu ahaa in aanu barnaamijka dhaxal reebka cagaaran waqtigii xagaaga aan ku soo hagaagno roobkii bilowday in xooga la saaro oo gobolka Jarar ku dhawaad 18,000 oo geed in la beero ayaa qorsho ahaa. qorshahaas wax ka badan 90% uu fulay. iyo dadkeenu oo national ID-ga inuu qaato loo baahan yahay hadda
waqtigan taagannahay digitalization baa loo guurayaa dadkeenu waa inuu aqoonsiga nationalka ama wadanka uu qaato taana runtii 100% gobolka Jarar marka la eego degmooyin qaara oo ka jira caqabado xagga mashiinada ah mooyeen 100% wixii aan qorshaysanay 15 ka cisho in la soo qabtaa waa la qabtay bilow fiican baa ka jiray qodobka kale waa ka bixida ku tiirsanaanta waad ogtiin deegaankeena marka la eego deeqaha kala duwan ee safety netka iyo deeqihii raashimadii caawimaadka ee noogu imanayay inaan ka baxno qorshe ah iyo xisbigu qaatay marka inaan ka baxno ku tiirsanaanta inaan ka baxno gacmaha shisheeye inaan ka baxno qodobkan qaadanay runtii bilow fiican diyaar garow badan baa ka jira 92% gobolka Jarar marka la eego dad ka qalin jabiyay ku tiirsanaanta ayaa jiray 8% baa harsana iyagana dadaalo badan oo loogu jiray in bal tababaro kala duwan la siiyo lagu kabo in shaqaabuur loo sameeyo oo ay kaga baxaan ku tiirsanaanta ayaa jiray guud ahaan markaan eegno habkii aan ugu jirnay shaqadan runtii wax ku ool ayaa soo qabsoomay xaaladda hogaamineed ee meesha ka jirta hogaaminta gobolka degmada ilaa qabale habka ay ku sugan yihiin waan qiimeynay runtii markaad eegto hogaamin dhalinyaro ah oo aqoontooda fulineed ama kartida fulineed ay fiican tahay markaad average eegto ay fiican tahay dad dhalinyaro ah oo runtii hididiilo ku gelinaysa dadkeenu inay xagga ay u socdaan aqoonta ayaad arkaysaa ilaa qabale markaad eegto dhalinyarteeniba ka shaqeynaysa dhammaan gobolada markaad eegto xagga maamul magaalada runtii isbedel aad u weyn baa ka jira guud ahaan inta aan soo sheegayba maamul magaaladan way ku fiican yihiin way bal hadeen dib u yar noqono waxaad xusteen barnaamijyada hindisaha xisbiga barwaaqo ee ka mid yihiin dhaqo oo dheefso iyo sidoo kale barnaamijyada looga gudbayo ku tiirsanaanta si loo helo dal madax bannaan isla mar ahaantaana loo abuuro maxaan ku raadaay wax soo saarka loo xoojiyo wacyiga bulshadeenu intee leeg markaad kormeerka ku jirteen ayaad hoos u eegteen heerkeesa ayuu marayaa wacyiga bulshadeena ku saabsan sidii barnaamijyadan looga midho dhalin lahaa hogaaminta laftirkoodu in intee leeg bay fahamsan yihiin in barnaamijyadan la hirgeliyo oo maxaan ku radaa la dhaqaajiyo si loo gaadho qorshayaasha uu xisbiga barwaaqo hiigsanayo run haddaad eegto initiative-yada ay xisbigu ay qaateen uu kow ka yahay xagga markaad eegto in aanu dad iskaray aan noqono ama dad isku filan oo cunadooda ugu yaraan cunadooda waxay cunayaan isku filaaday inaan noqono habkaas wacyigaas ilaa qabale markaad tagto dadkeenu waa dad ku baraarugsan dad inay noqdaan inay isku filaadaan raba oo caawimaadka aan jeclayn weeye runtii markaad eegtana barnaamijkan inaan ka baxno ku tiirsanaanta deegaanka Soomaalida waa number badan baa safety net ka qaata laakiin dhab ahaan markaad hoos u dhaadhacdo dadkeenu waa dad iscaawiya markaad eegto xagga dhaqan ahaan waxaan leenahay dadkeenu dad keligii nool maaha waa dad isku tiirsan iscaawiya qof ehelka kamida oo gaajaysan adigu aadan cunaynin oo dhaqankaasaan leenahay wada noolaanshaheena bulshada ah ayaa asset noo ah ama noo ah asset buu noo yahay taas markaad eegto runtii caawimaadba uma baahni baad socon kartaa marka maadaama ay taasi jirto taa inaan booldigarayno oon xoojino wacyiga bulshadeenu in lagu caawiyo ah ma jecla marnaba ma jecla dad la caawiyo ah inay noqdaan waxay jecel yihiin inay iskood wax u qabsadaan ay iyagu iscaawiyaan ay isku tiirsanaadaan ay iscaawiyaan bay jecel yihiin taa wacyiga ilaa hoos hogaaminta markaad eegto hogaaminta initiative-yada xisbiga si fiican bay u fahansan yihiin modern less markaad average aad eegto way jiraan kuwa in taageero u baahan oo in la kobciyo awoodooda loo baahan yahay laakiin 100% markaad eegto aad bay u fiican yihiin xagga wacyiga iyo ka shaqaysiinta iyo maadaama dabagal joogta ana jiro oo xisbigii dabagal u sameeyay xukuumadii dabagal ay sameynayso oo la og yahay in arimahan inta loo tiriyo loo dhiibayo lagana tirsanayo dadkeenu wacyigiisa hogaaminteena markaad eegto awoodooda fulineed runtii way fiican tahay ilaa hoos markaad u dhaadhacdo ilaa qabaleegi aad iyo waxa kale ay jira kulankan hadda waxa lagu qiimeynayaa guud ahaan hogaamintii way soo xarootay hogaamintii socdaalka u baxday waxa lagu qiimeynayaa qodobadii aan kala tirsanay hoos u dhaadhacnay aan soo eegina ama kormeer ku ahayn iyo shaqooyinkan soo qabanayna ayaa la qiimeyn doonaa bal wixii ka soo baxana waan arki doonaa laakiin gobolkan anigu qornaa iyo maamul magaalada markaad eegto shaqooyinka 100%
ma oran karo laakiin shaqooyinka si fiican ay u socdeen wixii gaabay jirana waxaan ku saxaynay goobtaas haddii u baahdo go'aan in la qaata goobtaasaan go'aan ku qaadanaynay haddii loo baahdo in gashi uu u baahan yahay goobtaasaan gashi ku qaadanaynay waxaa jiroo kale in one project one warada one project wax lidha ama degmo kasta hal projecti in la fuliyo qasab ahayd waxaan xooga saarnay waxbarashada guud ahaan deegaanka waxaan xooga saaraynay xagga waxbarashada marka at least degmadii in laga helo hal model school markaan leeyahay waa school laga heli karo librarygii muxuu ahaa laboratorygii hadduu high school yahay iyo maxaa la yidhahdaa ICT roomkii macallimiintuna u dhammaystiran tahay suuliyadii biyihii wax kasta oo adeega uu dhammaystiraya in degmo kasta hal laga helo taasaan xooga saaraynay 11 degmo oo gobolka Jarada iyo maamulka magaalada Dhagaxbuur intuba waxay qaateen one projectigaas maamulka magaalada Dhagaxbuur oo qaadatay inay KG model la dhisto iyaduna oo taasoo runtii barbaarinta dhalinyarta ciyaalka yaryara oo runtii faa'iido weyn u leh beeska ciyaalka markay soo barbaaraan KG-ga lagu barbaarinayo marka haddaan guud ahaan eego initiative-yadii xisbi ahaan aan u qaadanay marka la eego habka fulintiisa aad u wanaagsanaa xagga gobolka aan ku qornaa markaan eego degmooyin liitay way jireen oo xagga dhaxal reebka cagaaran uu roob ku saameeyay ama biyo lahayn degmooyin waxaa jiray xagga dhaqood maxay daryeelka dalag iyo daryeel maadaama beeraha ayna aqoon badan ayna u lahayn in tababar lagu siiyo ama hoos loo dhaadhaco u baahnaa goobtan ku qaadanayna go'aanka goobtan joogno inaan go'aan ku qaadano xafiiska ay qusayso aan la soo xiriirno oo team isku dhafa uu la soo diro halka goobta lagu saxo wax kasta oo caqabada oo meesha ka aragno mashruuca socda haddaan aragno inuu design problem uu leeyahay in markaaba loo soo diro xirfadlayaasha haddii uu u taagan yahay in payment u taagan yahay markaaba loo fasaxo guud ahaan waxaan sameynaynay goobta aan joogno ee kormeerka ku nahay in aan go'aan ku qaadano ayaan sameynaynay taas runtii barnaamijyo badan dhaqaajisay oo degmooyinkuna wax badan ay fulinayeen oo awoodda degmooyinka marka la eego runtii waxyaabaha la fulinayay ama habka wax loo fulinayay aad u wanaagsanaa guudaan marka la eego waayahay Maruhiba Ahmed aad baad u mahadsan tahay kulankeena aan ku wareysanayno wasiir ku-xigeenka xafiiska xirfadaha iyo shaqo abuurka deegaanka Soomaalida ahna xubin ka tirsan golaha dhexe ee xisbiga barwaaqo ee dalka intaas ayuu ku egyahay barnaamijkeenu uu sii socon doonaa mas'uuliyiin kala duwan ayaan wareysi la yeelan doonaa maadaama uu socdo kulanka qiimeynta kormeerka iyo hogaaminta xisbiga barwaaqo iyo kuwa xukuumaddu ku maqnaayeen kulankani markuu soo dhamaado wixii ka soo baxa waxaad kala socon doontaan bartaynu ku leenahay Facebooka page-ka xisbiga barwaaqo laantiisa deegaanka Soomaalida barnaamijka waxaad la socodsiinaysaa Muxudiin Maxamed Nuur intaan mid lamid ku kulmi doono waxaan kaga tagnaa sidaas iyo nabadgelyo